السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمانتين دي waxaan u maleynayaa jahwarar badan baa jira oo ku saabsan Sichian style oo de maalmahan warar badan laga sheegay horto waxa weeye Sichian style hadaan soo yaro koobo waxa weeye waa meel maalgashi oo qofku uu lacag dhiganayo qofku akoonkiisu lacag ka shubaya baynsigu geynaya baynsigu ayuu processka marinaya kadib lacagta wuxuu dhiganayaa Sichian style kadibna qofka lacagtaas qofku wuxuu dhigto 5% ayuu leeyahay haduu kun dhigto iyo haduu laba kun dhigto iyo haduu 800 600 dhigto waxay ku xirtay markasta wixiisa iminkana muddo sanad uu soconay laakiin anaga xagina Soomaalida intii maalmihii ugu dambeeyay intii sanadkii ugu dambeeyay ayuu aad u soo galay oo waxaasna wax kala dadka suuqgeynta ayaa soo gaarsiiyay waxa markaa jira dad badan baa maalgashan Soomaaliya runtii imika waxaan ku jiraan dhowr bood baan ku jiray lacagna waa gashaday lacagna waan kala baxay laakiin runtii marka laga hadlana inay scam tahay oo tahay meel isku dhacayana qof kasta uu ogaa qof kasta lacag dhiganayo lacag ka maarmi karo buu dhiganayo sidoo kalena waxa weeyaan lacagta dhigan laftigeena scam hadii ahayn baa uu ogeyn wax faa'iido laga helayo meel aynu laftigeenu xidhanna lacag kameen ka shan lahayn marka imika waxaan magacaabi karaa imika almost imika nimo badan imkaan saaxiibanahay sida runta lacago badan bay ay dhigteen qaar aan garanayo 70000 80000 44000 300000 waan garanaya lacag badan kala baxay laakiin lacagaha gashanayeen ba lacag fara badan ahaa waana waxa weeyaan waxa weyn tijaabiyeen laakiin iyagu waxay dadkii markii ugu horeysay inta baa ku qarxin ka gaarsiiyay waxana waxa iska marka laga hadlana waxa hore in badan socdo way Soomaalida waliba gaar ahaan Sweden joogta iyo Ingiriiska xumbalani hadana khaldanayn oo dadka ugu badan in badan baasha wadin waliba yaro gaar oo baasha markii baasha soo yar fideeyo way jiraan dad badan iyo waliba qaar kood wadankii jooga oo deeguna wax fiican ka sameeyay marka baalkuna waa la isku ogaa inuu qarxayo laakiin waxa weeyaan waa quick money lacag degdeg laga sameeyo qofka dugto 10000 waxa weeye maalintii uu laga yaabo inay 500 soo dhacdo kale oo degdeg waa 5% marka laakiin intii dambe iyaga laftigoodu waa marketing bay ahaayeen qofkuna marka uu wax badan yimaadaan isqaal gareenayo dad badan baa soo galay oo fara badan Soomaalidu kaliya ma aha adduunka dhan marka iminka lacagtii iminka wax yarantay iminka aniga lacag bay iga jirtay lacagna waa lacag ha yaraata ama ha badnaato badanka badan saaxiibada lacagtooda waxay dalbadeen qaar kamid waxay dalbadeen jimcihii qaar waxay dalbadeen isniintii qaar waxay dalbadeen laba cisho ka hor aniga la hadlay waxaan dalbaday shalay baan dalbaday laakiin lacagta ma hayo laakiin waxay dhaheen Sichian style lacagta markay ka timaado inay timaado Binance-gaaga waxay qaadanaysaa 4 saacadood laakiin dhaaftayba imika qaar saaxiibada kamid laba cisho ay qaadanaysaa qaar lacag $200 qaad ugu jirtay qaar $200 ugu jirtay qaar ay shako rabeen soo withdraw ku sameeyaan oo ay u soo gasho akoonkooda way fara badan tahay marka laakiin wali ma hayaan waa jahwarar badan baa lacagta ma hayaan lacagna waa lacag geeridood waa geeri sabab qofku uu dhinta muuno lacagtaasuna waxa weeyaan qof kasta oo taqa lacagtaas inay soo gaadho baa mihidoon oo ama ha yaraato ama ha badnaato laakiin wali lama hayo oo waa jahwarar kaas jira laakiin sida runta waxa weeyaan maanta waxay soo direen email bay soo direen emailkan xagga hoose soo dhigay waxay leeyihiin mataqaana jahwarar badan baa jira lacagahan waanu soo gudbinaynaa upgrading baan ku wadnaa bahalkaygii wuxuu sameeyay traffic jam buu sameeyay haduu alla ka dhigo waxay leeyihiin labada bisha February ayaanu hagaajinaynaa lacagta waqti ka yar Binance-ga lagu shubay lacagta intii uu qaadanay transaction-ku waanu yaraynaynaa waqtigii ay sheegayaan barka waynu fiirinayna marka laakiin wax kala mid u noqon lacagta in la helay la waayo labada wax ka dhaxaysa wala ma jiraan oo sidii hore mataqaana chain mainki ugu sameeyo ko chain mainki dad badan maalgashi wax ka faa'iiday dad badan lacag degdeg tagay oo waa scam qaar kale oo badan baa jiro imka Soomaaliya badan maalgashi baa jira mataqaana IB capital oo lacag badan gashaday qaar baa Royal Q oo lacag gashaday wali ma garanayno laakiin anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay fikrad anigu qabaa in arrimaha mataqaana waxyaabahan kriptada la xiriiro dhan horta inkastoo dhowr sano ku jiray laakiin muddo aan ku jiray waxaan taageersan dadka taageersan maanahay arrimaha in aad loo maalgashado oo arrimaha in aad looga warhayo
waxa weeyaan lacagtuna waa degdeg hawsha la tijaabinaya lacagtu hay'ad ama habadnaatee waa fayda laga keenayo laakiin haddana inagoo taa markaas maskaxda ku hayno oo wax laga samayn karo wallahi iminka halkan aan joogo iyo wadamadii kale aan ka imiba asxaabtu aad ugu macaashin xoog ugu macaashiniyo waxyaaba kirto la xiriiran marka taa waan isku dhirigelinina lacagteena waxa weeye bal waynu eegaynaa inuu helno inuu weyn haddii la waayana waxa weeyaan ma noqonayso mid aynu ku sabarno inaan dib mataqaana u tegamayno haddii helna alxamdulillah waxyaaba kale marba un iyo teknolojiyada marba wax baan loo keenaya marba wax cusub baa soo kordhayo laakiin waxa muhiim ah de marba wixii la wadaago laakiin sidaan ogsoon wax kastoo mar bilaama inta dadka horeba ka macaasho wax kasta dadka horeba ka macaasho marka tan noqon waxaan ku niyad jabno lacagteena insha Allah wixii upgrade iyo wixii telegram isticmaalna waa ka wada soconaynaa xog ugu badan saaraynaa marka Charles Kolo iyo fursad kale oo deemka mataqaana oo aynu oranayno dib wax dambe oo la xidhiidha kriptada gelimayno taa waxa la taa aynu iska deeyno ka warsugno waxooga in fiirna insha Allah khayr iyo farxad bay idin rajeenaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh